Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada Maami Academy. Waxaan ku wadnaa daawade dhulka wax badan ka ogow. Dhulka Ingiliish ahaan waa Earth, Carabi ahaan waa ardi. Dhulka waa meeraha saddexaad ee qoraxda u dhow bahda midaysan qoraxda. Dhulka waa meeraha ugu mug iyo miisaan weyn iyo midka shanaad ee ugu xajmiga weyn sideedda meere ee qoraxdu midaysay. Dhulka waxaa lagu naaneysaa meeraha midabka buluugan sababtoo ah marka hawada sare laga eegayo wuxuu u muuqdaa mid buluug ah. Dhulka waa meeraha kaliya ee nolol ka jirto marka lala barbar dhigo meerayaasha kale. Meeraha dhulka da'diisu waxaa lagu qiyaasaa 4.5 bilyan oo sano. Dhulka isku wareegiisa waa marka laga xisaabiyo dhulbadhaha. Sidoo kale baaxadda guud ee oogada dhulka waa taas oo ka kooban intaas dhul ama caro iyo dhagax ah una dhiganta biyo iyo bad taas oo u dhiganta mugga dhulka waa halka cufka meeruhu dhulka yahay. Sidoo kale miisaanka cuf ee dhulka waa halka cufisjiidka dhulku yahay halka cufisjiidka dhulbadhuhu yahay taas oo u dhiganta cadaadiska dunida waa heerkulka oogada sare ee dhulku waa meel dhexaad taas oo ah mid taageerta in nolol ka jirto meerahan. Kulka iyo qabowga dhulka wuu kala duwan yahay iyadoo cidhifyada ugu heerkul hooseeyo taas oo ka dhigtay qabow badan, laakiin meelaha ku beegan dhulbadhuhu ayaa ugu heerkul sareeya dunida. Guud ahaan heerkulka dunida marka ugu hooseeyo wuxuu gaadhaa 184 Kelvin ama 89.2 Celsius oo Celsius ah. Dhexdhexaad markuu yahay heerkulku waa 15 centigrade ama 288 Kelvin. Marka uu ugu sareeyo kulaylku wuxuu gaadhaa 56.7 Celsius ama 330 Kelvin. Cirka ama samada sare ee dunida aan ku noolnahay waxay ka samaysan tahay 78.8% curyaha nitrogen taas oo ah hawo, 20.95% oksijiin, 0.93% argon, 0.39% carbon dioxide iyo qiyaastii 1% uumi biyo ah. Inkastoo mararka qaar kala duwan tahay cimiladoodu. Meeraha dhulku wuxuu sameeyaa laba wareeg, mid uu ku wareego xariijintiisa taas oo loo yaqaan sidereal rotation period oo ku qaadata waqti dhan 23 saacadood 56 daqiiqo iyo 4.1 ilbiriqsi taas oo ku dhow 24 saacadood oo ah habeen iyo maalin. Wareegga labada dhulka wuxuu ku sameeyaa qoraxda waxayna ku qaadataa 365 maalmood oo ah waqtiga dhan hal sano.